madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad si heer sare loo soo agaasimo oo lagu xusay 1 Luulyo taas oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta Stadio Konis ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo mid loogu dabaaldegay 1 Luulyo 1960 oo ahayd maalintii xornimada isku darkii Koonfur iyo Waqooyi ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya, saraakiil ciidan iyo kumanaan shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Shacab ka qayb galay munaasabadan ka socotay garoonka kubadda cagta Stadio Konis ayaa wajiyadooda waxaa laga dheehan karay farxad iyo hilow ay u qabaan Soomaalinimada oo mid noqotay iyo waliba horumar ay ku talaabsato ummadda Soomaaliyeed. Ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dunida isagoona u hambaliyay munaasabada 1 Luulyo. Munaasabadan maanta aan isugu nimid xaqiiqatan waxay muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed shucuurtooda meel kasta ay joogaan iyo jaceylka u qabaan dalkooda iyo wadaniyadooda iyo Soomaaliya inay hor u socoto oo horumar gaartay ay tahay dal xaqiiqatan wax walba haysta wax walba u dheeg yihiin hadday noqoto dad hadday noqoto khayraad iyo hadday noqoto wax walba. waxaan rabaa halkan inaan ka sheego oo aan xaqiijiyo munaasabadan iyo munaasabadihii labadii sano la soo dhaafay aan u weyneynayn sababtu waxay ahayd inaan xoojinno wadaniyadda inaan xoojinno dawladnimada maxaa yeelay qof walba oo Soomaali ah kulli aan ku midownay dawladnimo kulli waxaan ku midownay hal qaran hal dal yaan ku midownay marka inaan xoojinno maalintaan oo kale oo qof walba oo Soomaaliyeed uu feesteeyo weeye marka aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay in qof walba meel walba uu joogo Soomaali meel kasta ay joogto hadday tahay qurbo iyo hadday tahay gudaha inay muujiyeen rabitaankooda iyo shucuurtooda iyo dareenkooda Soomaaliyeed. geesa kale madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu gubaabiyay inay muujiyaan midnimo, walaaltinimo, isjacayl ayna iskaashadaan si ay qarannimadooda u dhistaan. waxa kale loo baahan yahay inaan xoojinno dawladnimo yaa annagoo dhanna wada deeqda dawladnimo yaana wada deeqda oo aan ka dhex heli karnaa cadaalad aan ka dhex heli karnaa nolol aan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale wax ka hooseeya dawladnimo ma aha waxaan horumar ku gaari karno haddaan horumar ku gaari karno wax dawladnimo ka hooseeya iyo qaran iyo dal 30 sano ku gaari lahayn adduunkan ugu horumari lahayn. waxaan ognahay meeshaan ka taagannahay adduunka annagoo ah dad wanaagsan annagoo ah dad maskax badan annagoo ah dad firfircoon annagoo ah dad walaalo ah oo aan waxba ku kala qaybsanayn waxbana ku kala duwanayn. waad arkaysaan meesha aan ka taagannahay adduunka waxay ahayd inaan ka faa'iidaysanno inaan Soomaali nahay. geesa kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa u baxdhigay taalada daljirka Daahsoon taas oo lagu xasuusanayo haliyadii ummadda Soomaaliyeed wiilashii iyo gabdhihii lahaa ee naftooda ku huray xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. ciidamada ammaanka qaybooda kala duwan ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka magaalada Muqdisho iyadoo dhammaan la arkayay ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaas oo gaafureegaya guud ahaan wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho iyo waliba kuwa gudaha. Cabdi Cali Guuleed, Shabeelle TV.